maalinkii 11aad iyo dagaalka bariga dhexe afar qodob oo xiiso badan horta idin haya qodobka koowaad ayaa wuxuu noqon doonaa haduu ilaahay idmo muxuu yahay hubkan cusub hub yaab leh yaxaas badeed dawaafay u maleyso badda gudaheeda ku jiro oo Iran ay leedahay oo zaad loo yaqaano oo 400 oo kiiloomitir iska dawaafay yaxaas camal wuxuuna badda ku jiri karaa muddo 4 maalin ah hubkaas dabcan cid kale oo qabta aniga ma arkin maanta la soo bandhigay aniga waa yaabay waa idin wada sharxi doonaa qodobka labaad ee xisaab badan ee barnaamijkan idinku sharxi doonaa wuxuu yahay dagaal afka oo ka dhex qarxay Ali Larijani iyo Donald Trump Ali Larijani waa ninka ugu sareeyo Security Council-ka Iran way yani maamulka ugu sareeya hadda marka laga soo tago odayga hadda wiilka ninka hadda la doortay qaabinayga wiilkiisa ninka kale ee go'aamada waaweyn qaato Ali Larijani iyo Trump bootadan iyo handadaadan hawada la isku marsiiyay maxay tahay iidan waa idin wada gabdhihii Iran ee kubadda cagta oo maalmahan ka ciyaarayay ama ka qayb qaadanayay barnaamijka kubadda cagta ama ciyaarta kubadda cagta ee Asia oo dagaalka intuusan qarxin ka hor soo baxay hadda qisa yaab laha qabsatay qaarkood waa isdhiibeen waxay dhaheen magangaliyahana la siiyo shan kamid ah waa la aqbalay qaarkood se dib ayay ugu soo noqonayaan Iran diyaaradda soo saariyeen la leeyahay waana fiiriya kulligood waa kuwii diiday oo ay qaadaan heesta qaranka ama heesta calanka Iran markii ciyaaryahanada saasay u saftaan istaagaan kulligood gabdhaas way diideen laakiin hadda waxa la leeyahay kuwan dib u laabanayo qoysaskooda la afduubtay waxa la yiri ama soo laab ama hooyada la cunaa ala dilaa qaarkood markaa dib u laabanayo fadeex iyo ceeb iyo reer galbeedka wax ay sameeyaan garan la arrinkaas ayadana cakirana way jirtaa idinka odaga ahaa Hexek oo saaka hadlay waa wasiirka dagaalka ee Mareykanka oo yiri maanta oo talaada ah ay ugu darnaan doontaa maanta shalay darad maanta ka daran tahay wuxuu soo wado iyo waxay sameyn doonaan dabcan arki doonaa duqeyntii iyo wixii oo sida u socdo way dib noogu soo celin qodobka koowaad qodobka koowaad muuqaalka ildaawada waxa ay u jeedaan yaxaas badeedka u maleysaan waa hub zaad loo yaqaano oo Iran ay sameysay hubkan baddu iska dawaafa 400 kiiloomitir oo saan u baxa 5 maalin ayuu badda iskaga jiraaya waa ku dhex deynay badda waa ku dhex hilmaameele asaas ka soo socdo computerkaada mobilada waxba laga maamula adiga kaasa looga kala cararay dhulkii asaga ahaa Hormuz waa la kala fiigay markab soo gali karo fiiri aniga intaan ma ogeyn dabcan waxa ogeen 5 maalin ka hor Donald Trump oo dhahayo aagaas amnigiisa sugaya maraakiibteeda geynaya qof alaali qof karba shidaal inuu meesha kala soo baxo aniga soo yani garbaha ki istaagayo maraakiibteeda dagaalka ay soo galbinayso soo iskuma ogeyn hadda waxa la ogaadayba balaayo yaxaas loo malay yaxaas badeed badda ku jira Iran ay leedahay zaadkaas meesha looga kala cararay shidaalkii adduunka hawadu galay Mareykanka iyo Yurub waa loo kala cararay Faransiiska baata line dheer lagu jiray Ingiriiska shidaalkii shalay $5 ahaa maanta wuxuu sii marayaa $15 Mareykanka hadda ay joogna shidaalkii hawadu galay war adduunka waa yaabaya badda marinka Hormuz waxa u muuqataa Iran inay xiratay oo wax hadda laga qaadi karo anaga u jeedan dabcan arki doonaa iyo sidoo kale waxa kale oo muuqato Mareykan iyo Israa'iil way gaar ahaan Mareykan in uu damacsan yahay inuu dagaalkan ka dhex siibto uu ka baxo baasha Israa'iil iyo Iran inuu uga dhex baxo sheekada waa dheeraatay ko inta baa la sii maraysaa wax qaboobaay iyo wax joogsanaan looma jeedo waaba ka sii dartayba madfaca iyo drones hadda ku dhacayo qaliijka waaba ka sheekada waa ka sii dartay waayahay hadii nagu soo celisan dagaalka afka sida u jeedaan dagaalka afka sheekada qosol badan waay Trump wuxuu soo qoray Iran ay kulaha Trump dhahaya badda Hormuz hadda isku dayda inaa wax ka geysato yani ama dhibaato aad ka geysato 20 jeer wixii aad kugu dhacay 20 jeer يعني إن كبدن أكو جود عيسو جوك علوس أكو جود عيسو ترى ما ده هاي وحصو ساقري ولو سجوا أمرك خشير الله هاي وعسو جوابي نيكا أضيع جدا علي لارجاني وحيري فيري ترامبو بطلان حانشدة كجل عن حانشدة ورقدة كجل عن أنا وحنا جم قاعد سكوا أدي كوا وينا إكاهري أو حنا قاعد وين يا داي علي لارجاني يا داي وحيري أديك النيو أديك إسلالي صاحب أديك يا لو قارجني أديك إسلالي سلا جدا وحسدا سيري علي لارجاني ninka ugu sareeyo Security Council-ka Iran waaya
idin fasaxo hexag oo saa ka hadlay balaayo aan maanta soo wadnaa ayuu leeyahay. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence, more refined. waayahay bal waa arki doonaa waxa uu ka wado. waxay u muuqataa in jugta ay kasii darayso dabcan hal isqaarajiyo iyo shidaal meelihii ugu muhiimsanaa hadda la iska bartilmaameedsanaya. marka waa ognahay anaga dhan waa ka wada caajisnaa deertaan ilaa jugta si ay u socotaa wax isbedel male. anaga lay ka caajisnay ma ogiye wixii juga kala dhacday gataala soo socday ma ku jirina. waayahay qisada aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo gabdhaha ujeedaan gabdhaha kubadda cagta ee Iran tartan ay ka qayb galeen. tartankii gabdhaha waxay diideen in ay qaadaan heesta calanka Iran afkii way wada xirteen. waa laga badiyay saddexda kulanba ay ciyaareenba waa la soo garaacay. Australia imaadeen hotel ay degeen waxaaba la socdaba sargaal sare oo ciidamada Iran la socda galbinaayba aba ayaga macnaha tababarahaaba ciidanka Iran ka tirsan. maxaa dhacay markii laga soo badiyay gabdhaha hotelka ay imaadeen bas loo diyaariyay waxa uu diyaarinayo sargaalkaas sare ee Iran. waxaana la joogaa Australia waxaa la yiri haye soo baxa baska raaca elboorka la idin geena diyaarada la idinku qaada Iran dib la idinku celina. waa Iran tan diyaarada aysan geli karin. shan ka mid ah gabdhihii sida muuqaalka uga jeedaan arar hotelka ka soo fagteen may ma laaban karna anaga waana la qaarijinaa waa ognahay. ninkii daba socdo marka ninkii sargaalkii daba socdo oo taagan bixi karti ma dhuumi kartiin askartii Australia la waay hotelka oo laga qabtay gabdhihi la soo fakiyay. gabdhihii markii la soo wada fakiyay shanaa tiri hana la badbaadiyo ninka hana laga badbaadiyo. kuwii kale waxay taagan yihiin dib u laabanayna Iran u soconaa. marka shanta laga reebo kuwa kale ninkiiba raaceen sababtu maxay tahay qoysaskooda qaarkood waa xaasas caruur leeyihiin. hooyana waa taqaan haddii caruurteeda iyo odaygeeda laga afduubto oo laba joys la siiyo ama waa dileynaa oo waa imaanee ama waa dileynaa oo waa iska maqnaan kartaa ama waa imaanee waa kuu fasaxeynaa. hooyo haddii labadaa joys la siiyo dabcan caruurteeda dib ugu laabanaysaa. marka qaar gabdhihii kubadda cagta ee Iran ee heesta u istaagi waayey ee diiday inay heesta calanka qaadaan qaarkood waxaa lagu qasbay inay Iran dib ugu laabtaan si caruurtooda iyo qoysaskooda kale ay dib ugu laabtaan. taas oo dabcan waa la ciqaabi doonaa gabdhaha markay laabtaan. waxaa lagu ciqaabi doonaa waxa adduunka nooga ceebaysay oo heesta calanka u qaadi weysay. adiga walaalow intaas soo kororsaak